بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ka hadli doonaa insha Allah liin dhanaantu faa'iidada ay leedahay iyo waxtarka ay leedahay adiga ay ku leedahay ama dumar ahow ama rag ahow. marka walaal waxaa loo baahan yahay insha Allah inaad liin dhanaanta isticmaashaan every morning kasta insha Allah. kusoo dhawaada channelkayga Faadimo Fiican waa walaashii Faadimo oo salaamaysa. waxtarka liin dhanaantu waxay leedahay faa'iidooyin aad u fara badan. liin dhanaantu waa vitamin C, waxaa ka buuxa nafaqada loo yaqaan vitamin C. liin dhanaantu waxay dishaa bakteeriyada caloosha, waxayna u fiican tahay acid-ka caloosha. haddii aad gastric qabto, haddii aad bacteria qabto, waxaasoo dhan way u fiican tahay, wayna ka hortagtaa. haddaba sidaad u isticmaalaysaa liin dhanaanta? waxaa loo baahan yahay calooshaada iyadoo empty ah oo waxba ku jirin aroortii marka aad kacdo inaad cabto hal koob oo aad ku miirtay hal xabo oo liin dhanaan ah. liin dhanaantu waxay u fiican tahay bakteeriyada, waxay kaloo u fiican tahay infectionka. vitamin C oo dhan baa wanaagsan. waxay kaloo u fiican tahay haddii caloosha bakteeriyada ay maaragtay ay sii markastaba ay sii weynaanayso, ay grow up sameynayso, way baabi'isaa, way u wanaagsan tahay. marka ha moogaanin liin dhanaantu. liin dhanaantu waa shay aad iyo aad u fiican, kana mid ah dhirta Ilaahay subxaanahu watacaala uu ka soo saaro dhulkiisa. hadda waa aroor, subax wanaagsan baa idin aniga aroor bay noo tahay. waxaan sameynayaa koobkan kadaato liin dhanaan baan ku miirinayaa. waad aragtaan, bismillah. saasaan u tuujinayaa, saasaan u tuujinayaa. kan waa jabkan kalena mar horaan ku miiray, inta ka dhiman waan ka dhamaystirahayaa. waad aragtaan labada jab baa idiin dhigay, waa hal xabo oo liina oon kala jaray. bakeerigaasaan ku miiray. waxaan ku shubahayaa marka biyo aan ka ku karkarsaday oo xoogaa qandaca ayaan ku shubahayaa. waa koob. waxaan sameynayaa weli maanu qureecanin, waan cabayaa insha Allah dhowto. marka waxaad sameysaa walaal ama dhagayste, waxaad sameysaa insha Allah walaalaha quruxda badan ee ku xiran channelka Faadimo Fiican sorry. waxaad sameysaan waagu markuu bariyo aroortii idinka oona qureecanin oo afka biyo xitaa aan saarin, caba sidaa u miirta. wakaa koobkii waa hal koob liin dhanaan, hal xabaan ku miiray, hal xabaan kala jaray, jab iyo jab, labadii jab baan ku miiray, dan biyaan ku shubay. maxay kuu taraysaa marka? caloosha waad ogtihiin bacteria way ka dilaysaa, way u fiican tahay. waxay kaloo u fiican tahay gastriga. waxay kaloo u fiican tahay hadday xameetidu ku xanuunto, dadka xameetidu xanuunto, sorry, xameetidu haddii ay maaragtay inside-ka caloosha wax kaaga jiro, ayada qudhigeedu way u fiican tahay. marka isticmaalay insha Allah, faa'iido badan baad ka gaaraysaan. dadka gastriga qaba, haddaad gastric qabto aad bay ugu fiican tahay. haddaad rabto inaad iscaatayso, walaalaha caloosha kirishka kule oo yara caloosha maaragtay isha xaluska kule, ama rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaan, waxay sameyn karaan kuwaasi. waagu markuu bariyo iyadoo qof kasta waagu markuu bariyo iyadoo caloosha qof kasta uu sameyn karaa. calooshiisa asigoo empty ah markuu cabo half an hour cunto ma cunayo. half an hour because iyada energy ah, half an hour qureecda wuu iska ilaalinayaa, ma cunayo. then after half an hour ka bacdi ayuu cuntada cunayaa. markaas maalin walba saas uu sameynayaa. calooshii way yaraanaysaa marka wuu